madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Alxaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo soo gaaray maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Umar Cali Cabdullaahi Badan maayirka magaalada Boorama iyo waliba xogayaha dawladda hoose magaalada Boorama iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha dawladda gobolka Awdal madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo hadaba ujeedka safarkiisu yahay dardargelinta arrimaha doorashooyinka ee maalinta bariya ka qabsoomi doona guud ahaan dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal maalinta bariya ku sugnaan doona ayaa warayna dab waxa halkaas ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi waxaanu halkaas ka sheegay waxaan ku suganahay xaruntii madaxtooyada gobolka Awdal oo aan ku soo dhaweynay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii laba maalmood inaga maqnaa safarkii xeebaha markuu dhaafay intaana waxaan ku mashquulsanayn oo ilaa imika barsaabkii ku mashquulsan yahay hawlihii gobolka iyo xalinteedii goob walba sidii ay shaqadu u socotay iyo halkii loogu talagalay inay bilaabanto iyadoo wax walba ay haysan nidaamkeeda uu degan yahay madaxweyne ku-xigeenka ku soo dhaweynaa kuleeyda qofka codka ugu horeeyay ku ridana aad u noqonaya insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo kulay waa dhalinyar baa la iskaga badan yahay laakiin haddana dadka waqtiga wax barayo waanu iska hagaagi doonaa insha Allah waanu kugu soo dhaweynaynaa ilaa imikana arrimuhu si fiican u socdaan oo nabadgelyo ah ciidamada qaybintoodii qalabka qaybintoodii kuwii ugu dambeeyay xarunta degmada gudaheegu maanta ayaa goob walba halkeeda la fadhiisanaya haddii Ilaahay yiraahdo oo la tagaya insha Allah ilaa caawa ayay ku dhamaanaysaa si waagu ugu bariyo geestiisa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Alxaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka warramay guulaha waaweyn ee doorashadani u horseedayso Soomaaliland sanadkani ayaa waxa uu halkaas ka sheegay Ilaahay baa mahadle nagu soo nabad celiyo gobolkii saaka marka labaad waxa aan u soconaa iyadoo doorashadii ay insha Allah haddii la gaarsiiyo bari toole 6 subaxnimo ka bilaabmi doonto dhammaan dalka Soomaaliland adduunyadii oo dhan maanta ay nala joogto goob joogaashii caalamiga ay maanta boqolaal kor dhaafeen si ay noola qayb galaan ama ay u arkaan dimuqraadiyadda Soomaaliland arrintan maanta waxay noqonaysaa arrin qaranka Soomaaliland taariikh dheer u noqonaysa taariikh weyn u yeelaysa waxaan u baahanahay in diyaar garowgii waa ka asal la sheegay wadanka uu diyaar garoobay gobol iyo degmoba waa loo diyaar garoobay waxa kaliya yaala in bari toole haddii alla ka dhigo codkii lagu rido taasina ay inoogu bilaabanto si karaamiye sharaf iyo anshax loo nabadgelyo ah marka waxaan u nimidnay annagoo dhammaan goboladii sida loo kala baxay qof walba halkuu ka diiwaan gashanaa uu baxay anagoo maadaama Boorama ka diiwaan gashanaa oo ka launch gareynay maalintii ama ka daahfurnay diiwaangelintii gobolka Awdal 2016 saasana kan ugu soo noqday waxaan rajaynaynaa in doorashadaas Britoola si nabadgelyo ah oo deganaansho noogu bilaabanto waxaan leenahay dhammaan shacabka Soomaaliland shacabka Awdal maanta u nimidnay inay u diyaar garoobaan doorasho hufan oo xalaal oo xor oo xalaal ah dadka ajaanibka inoo imanayana si wanaagsan loo soo dhaweeyo lana taakuleeyo si ay shaqadooda u qabsadaan iyagoo xor ah way iman doonaan goob joogaasha kala duwanay dhulka ay imanayaan wax ka mid degmada Boorama ilaa iyo Burcoorta way gaadhayaan labada gobol kale kulli qaar baa gaadhaya laakiin ugu yaraan 4 gobol ay ka fargareynayaan inay wada u joogaan qaabka doorashada soo dhacayso waxa isku dhex jira siyaasiyiin aqoon-yahano isku jiraan rag badan oo Afrikada xisbiyada macaarid ka socda oo la yaaban habkeenan sinaashaha tartanka dawladnimadeena iyo dimuqraadiyadeena aad ula yaaban oo dhammaan ugu yaraan dhowr 10 dal Afrikaan ka socda safiiradii midowga Yurub oo dhan baa socda marka runtii waa guul taariikhiya guusha taariikhiga waxaan rabnaa in wada ilaashano dhamaanteen shacab iyo dawlad banahay Hussein Ataya Gafanayo Universal TV Boorama